Ismaaciil Cumar Geelle waxa uu ka bareeray dagaalka ciisaha Somaliland inuu kiciyo si Somaliland loo burburiyo isaga oo kaashanaya garab kale oo Itoobiya oo iyaguna siyaasad kala wata maanta calankii jamhuuriyadda Somaliland baa inta lagu gubay Saylac ayaa kii Jabuutina la dul qabinaya weligeed taariikhda ma dhicin ciidamo ayaa la rabaa hadda in laga soo geliyo dhanka Somaliland ee Jabuuti ka hor inta aanu ciidanka qaranka bartayman ciidamadaasi hore ayaa looga dhisay Jabuuti horaan idinku sheegay intan maanta la sugaya intan maanta ayaa la sugay okay haddaba wax baan idin sheegay barnaamijkeenan aad ugu falanqeyn doonaa arrimahaas iyo kuwa kaleeto xiisada barta ka taagan dawladda Somaliland maxaa uga meeliyay mar dib baan ku celin doonaa marna arrin adag baan ku leeyahay hadalkayga u fiirso nimanka la yiraahdo ciise suurtagal ma tahay in ay calanka Itoobiya ilaa waxay degaan diri dhaba iyo gobolka City arma ku dhacaan calanka dawladda Itoobiya intii gubaan ka Jabuuti ay ku dalan wax kasta hadii lagu sameeyo waa kuwii cafarta halka ku leeynayay ee wax kasta dhacayay hal maalinta mudaharaadeen calanka miyay gubeen ma ku dhacaan inay calanka dawladda deegaanka Itoobiya gubaan waa maya Jabuuti iyaga degan majority ka madaxweyne ka ciisa sheegta arma ku dhacaan in ay ciisa intay qaadaan calanka Jabuuti gubaan ay wax kala sheegtaan ama ay intay mudaharaadaan gubaan ku dhacaan maya waa maxay sababta ay Somaliland u dhacday in calankeedii inta sida loo gubo ka kalena la babiyo mudaharaada sida loo qaado waay bani aadamka waxa la yiraahdaa sidoodaba xorriyadda baarka loo firo wanaaga iyo baashirku waa uga darax dadka qaarna xorriyaddii fahmaano qiimaha ay u leedahay iyo wanaaga iyo dimuqraadiyadda yaqaan dadka qaarna dhab in afka lagaga taagnaado laga adkaado un bay yaqaanaan nimankaas samaroon baan tusaale idin soo qaadanaya aqligoogu 500 sano dadka ka horeeya sababta ku sheego way fahmeen buugaas inuu fidna soo wado waa ka dabka dhigay buugii inuu fidna soo wado waxay ku fahmeen waa niman aqoon leh aqli leh Somaliland dhistay dhiika ma aragtay uu ka galay dhidid qiimo u yeeshay shiraru qabtay wuxuu soo qabtay Somaliland oo meel istaago madaxweyne ka soo nabadda iyo wanaag iyo baraaraha iyo barwaaqada yaqaan aan meel kalena looga gacan raadin oo maanta dhan wax la doono lagu akhriyo oo aan waxa dhageysano yaqaana dalkooga iyo dadkooga iyo deegaankooga iyo walaaladoodu waxay wada leeyihiin laakiin ninka ku yaqaana inuu Saylac isagoo joogo haystay inay Saylac Jabuuti ka tirsan tahay waa ninka ciise laba munaafaqadeeya hadaba inaad Ciroy Cabdiraxmaan Ciro barnaamijkan iyo gaarsi munaafaqada shayga la ma fiicna waxa weeye nimanka maanta intay halkaas sameeyeen calankii Somaliland ku gubay horta dayac baa ka jira dawladda Somaliland oo ciidankii qaranka oo dhan waxa la arkay bari loo rabay arrintan goormay bilaabantay arrintan hadaba xilli hore ayaa la soo bilaabay waxa la soo bilaabay xilligii MOU markii uu dhacay ee Itoobiya Ismaaciil Cumar Geelle go'aan wuxuu ku gaaray Somaliland in la burburiyo sidee loo burburinayaa hadaba baa la yiri Somaliland waxa la yiri gobolladii bariga ayay kaga kaceen oo ciidankoogii baa jabay oo huuhaaba la akhriyo way daciifeen oo sidaas qorsha la qortay in ay doorashada iska hor iman doonaan dagaalna lagaga qaado halkan qorshaha labaad baa wuxuu noqday in la isku diro Gadabuursiye Isaaq oo la laayo walibana dad dadka ma aragtay liidka yani caanka sida tusaale Maxamed Abiib oo kale la dilo gudoomiyaha baarlamaanka oo kale gudoomiye ku-xigeenka koowaad baarlamaanka la dilo wasiir yani dad caana si loo yiraahdo Isaaq baa dilay oo sidii la hascaano loo kiciyo
ma waxay moodayaan dadku ileen eeg dadku markay aqoontu biyo dhigtay caqliyadu ay 500 sano ka horeeyaan waxa bay fahansiin moogtay foostadii bay fahmeen oo iyaga ugu riixeen okay waxa la yiraahdaa hadaba mar labaadkiina ciise iyo gadabursiyo dhinaca ayaa ciidan la yiri meelaha looga sameeyo qolo yaro awdalisteeda calan yar meelaha la wareegaysa loo yeeray Soomaaliya iyo Turkiya waxay la kulkulmeen waa la yaacay halkan waaski guudiyo waxba la isku yiri aynu wax sameeyno ciidan sameeyno Etoobiyana kaashan aw baraha laga galo Djibouti laga galo xagan buuqa laga furo xagana dawlad deegaanka laga furo dacwale iyo dhulkan ay degaan ma aragtayeen saaqa Etoobiya xagaana laga furo barigi kadibna Soomaaliland baha olasho Mareykanna yaanu iman baashinayo Djibouti waxay danta ay leedahay markaa Djibouti iyada waa horaan ku sheegay 100 jeer baan ku celiyay dekada berbera inay dhaqaaqdo Djibouti danuguma jirto noloshooda waa halka ay masaaridu uga dagaalamayso biyo xireenka Ethiopia ay uga caraarayso uu Mareykan Venezuela ula dagaalamayo in uu Mareykan soo gaadho inuu Shiinuhu soo gaadho bartaas ganacsigiisa waa danteeda dibadda waxa ku xiran dhaqaalahooda iyo noloshooda haddaba ciidan baa la sameeyay isla markaa Saadiq Jood ninka la yiraahdo qaba in Ismaaciil Umar Geela loo yeeray waxa lagu yiri ciidan iyo waxyo meelaha nooga yeedhiyeen xoogay baa la isku yeeray waxa la isku keenay ciidankii qolooyin kale waxa la yiri markay intan u baahnaan waxaanu keenanaa qolo kale oo sabaroona kuwa hawiya dhulbaantiyo wax xoogay ciisa ciidan ilaa 1500 la isku keenay tababar baa loo sameeyay ordo buuqa la yiri ciidankii waa la soo qaaday xagana la keenay iska yar kala yaacaan taliyihii hore ee ciidanka madaxtooyada Djibouti baa looga dhigay madax tiraba 2 ilaa 3 jeer buu gudaha u soo galay Soomaaliland oo keenay mar hore doonyo ku keenay marna xuduud ka soo galay xuduudda dhinaca Soomaaliland iyo Ethiopia way dayacan tahay sababtaan ku sheego dhinaca Soomaaliland iyo Djibouti Ethiopia iska galaan way dayacan tahay amniga biyo dhigay xaga waxa la Djibouti bay naga xigto waa iska amaan xagana waxa la Ethiopia naga xigto waa iska amaan gobolkan awdalna waa gobol xasiloon oo dadkiisu yihiin dad xadaariyo degano aqoon iyo ku mashquulsan cilmiyo nabad biyo dhigtayo ee dawladda iyo hay'adaha iyo macaamilka qaanada qofka ba dhacdo waa saxintaba u jiraan iska barwaaqaysan gobolku mushkiladna kama jirto laakiin haddana inuu gobolku yeesho ciidan aan boolis ahayn laakiin ciidan qaran oo xuduudaha ilaaliyo maanka waa muhiim ciidamada qaranka halkan istultaban boqolaalka kuna waa ina qayb la soo qaado hubiyo rasaas la diyaariyo halka la diyaar garoobo waa ina alert la ahaado halka Djibouti waxa laga soo gelinaya hubiyo rasaas ana ku sheegay awoodda la haysto ugaaskii guud iyo ma aragtay halkaasna ka soo hanjabaya iyo ma aragtay leediri dhaba wallahi waanu gari doonaa tadacada waa la yaabi doonaa waryaadhe oo goormaynu yaabnaa oo xoog baaba la rabaaba in saylac la soo buuga lagu kala dabadi weeyaa daba ku qabo buuga la mid yahay galada iyo maalintii loo ogolaaday bartii ayuu maanta ka taagay buugaasi haddii Soomaaliland buuga lagu soo daayo waa dagaal iyo buuqii ka daran inuu ka dhici doono gobolkana waxa iska leh niman la yiraahdo reer awdal waxa baarka u fidho oo kalaandheereeya adeer wax weyn nimankaas Samaroon Siciid cid aan iyaga ahayn oo wax laga weydiinay walaa Soomaaliland kalaan wax laga weydiin karin walaa Isaaq baan wax laga weydiin karin walaa Djibouti ciisi Ethiopia wax laga weydiin karin adeer cid wax laga weydiiyo gobolkani waa nimanka la yiraahdo Samaroon Siciid wax alla iyo cid ku wada hadli karta ma jiraan buuga haday iyagu aqbalaan iska daayay in Hargeysa lagu qabto haday diidaan lagu qaban karo because of gobolkan iyaga dambaaba saylacna ayakaale diida bayel loo hayay iyagaale baki iyagaale dila iyagaale boorama iyagaale de halka laga dhaafaa iyaga yiri bar rabnade wasiirka arrimaha guud Soomaaliland uu ka shaqeeyay adeer iyo kaayiri ma rabno buugaas fid buu soo wada waxay ka arkeen mana naguna qaadan barnaamijka share gare
ismaaciil cumar geele dagaal buu iclaamiyey somaliland ama dagaal u diyaar garooba ama ciroy niicdii hadal jileecay naga daa jabuuti waa walaalahayay naga daa way badheedhay jabuuti rabshad iyo dagaal iyo inay somaliland dunto iyo in berbere la dumiyo ayay diyaar u tahay sababta oo ah adeer imaaraad isu soo fiiqeen baa halkan dhisay DP World baa joogta DP World wana kama dhaxeeyo waxa la dhisayaa khatareen buu yiri imaaraadku khadkaas hadduu ku dhismo dekedaa lagu bilaariyo somaliland ictiraafi yimaado jabuuti de qadiin mayso warku inaadir waa inta diida ma yeel hadday kugu adkaana Cabdiraxmaan Cirow niicniic iyo waxaan looma baahna walaal iyo waxaan looma baahna markii qarannimada taagan tahay in calankii Somaliland sida loo gubaa waa gudnimo iyo dawlad la'aan haddaba barnaamijka sheer garee biliga gaarsiin madaxtooyada aad iyo aad baan ku salaamayaa